sida aan ku soo sheegnay xalqadihii hore ee barnaamijkan muslimiintii hore waxay horumariyeen cilmiga xisaabta ama mathematicska. cilmiga falaga ama cirbixintu waxa uu ka mid yahay culumta ay xisaabtu asaaska u tahay, waxaana mar kasta la rumaysnaa in cirka, xidigaha, dabaysha, qorraxda iyo bishu dhammaantood ay saamayn ku leeyihiin dhulka iyo makhluuqaadka ku nool. diinta islaamku waxa ay la timid aragti cusub oo ku aadan wakhtiga, kownka, samaawaadka iyo hawsha ka dhex socota. waxay la timid munaasabado wakhtiyaysan sida salaada, soonka, xajka iyo qiblada. sidaas darteed ayuu cilmiga falagu muhiim ugu noqday muslimiinta si loola jaan qaado xiriirka cusub ee u bilowday cirka, dhulka iyo dadka dushiisa ku nool oo ay muslimiintu ka mid yihiin. falakiyiintii muslimiintu waxay u howlgaleen sida loo xadidayo dhalashada bilaha, wakhtiyada salaada, soonka iyo xajka iyo helidda jihada qiblada. arrimahan oo dhan waxaa loo isticmaalay cilmiga falaga iyo xisaabtiisa oo ay muslimiintii hore casriyeeyeen. aaladda loo yaqaano astroleebka ama ostorlaab oo u dhiganta teleskoobka maanta ayaa farsamadeedu ku bulaashay meelo badan oo ka mid ah dhulkii muslimiintu xukumayeen. xarumaha ugu waaweyn ee saadaasha hawada iyo cirbixintu waxay ku yaaleen dimashik, baqhdaad, samarqand oo ah usbekistaan iyo maraaqa oo ku taala dalka iiraan. aaladda astroleebka waxay qayb ka qaadatay in la helo godadka iyo marinnada ay maraan qorraxda, bisha, meerayaasha iyo xidigaha kale. sidoo kale aaladdani waxay fududaysay helidda cabbirka iyo masaafada ay dhulka u jiraan meerayaashaasi, iyadoo ay u bixiyeen magacyo qaarkood ilaa hadda la isticmaalo. wareegga dhulka, baaxaddiisa, qaabka uu u eg yahay, inuu qaab banooni yahay iyo inuu fidsan yahay, iyo fogaanta uu u jiro qorraxda iyo bisha waxay ahaayeen doodaha ugu waaweyn ee ay cirbixiyeennadii muslimiintu ka hadli jireen intii u dhexaysay qarniyadii 9aad iyo 15aad. cirbixiyeennadii muslimiintu waxay gaareen inay saadaaliyaan dayaxmadoobaadka iyo qorraxmadoobaadka labadaba, iyo sidoo kale xilliyada roobka iyo abaaraha oo wax badan ka taray beerashada iyo xilligooda. sidoo kale falakiyiintii muslimiintii hore waxay kaalin weyn ka geysteen horumarkii laga sameeyey in lagu safro badda ama waxa loo yaqaano navigation, iyadoo la xisaabinayo jihooyinka loo soconayo iyo xilliyada dabaylaha, taas oo wax weyn ka tartay ganacsiga iyo dagaalka dhinaca badda ah labadaba. helista marinnada badda iyo wakhtiga ay qaadanayso in la isaga safro magaalooyinka xeebaha ku yaala waxaa asaas u ahaa culumtii falaga ee ay horumariyeen ama ay dejiyeen muslimiintii hore. cirbixiyeennadii ama falakiyiintii waaweynaa ee muslimiinta waxaan ka xusi karnaa 1 aburayxaan albayruuni oo casriyeeyey aaladda astroleebka qarnigii 10aad. waxaa la sheegaa in farsamadiisu ay hordhac u ahayd samaynta saacadaha maanta la isticmaalo. 2 ibnu shaadir oo helay isaguna in bishu ay ku wareegto dhulka, labaduna ay ku dul wareegaan qorraxda. aragtidaas oo u sugay caalimkii nicholas copernicus 200 oo sano kadib. labadan saynisyahan ee muslimiinta ahi waxay ka mid ahaayeen raggii iftiimiyey fikradaha ah in la fahmo shaqada ka socota cirka iyo samaawaadka si loogu manaafacadsado dhulka iyo badda. محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة وابشي وعنيدو وانا ذا الرسول وانا كيكو شافع وابشي وعنيدو وانا ذا الرسول